Halow, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qoraalada soo baxaya waxay sheegayaan xasan sheekh in uu ku dhawaaqay dagaal ka soo horjeeda dowladda Itoobiya. Already-na dagaal wuu ku qaaday oo waatii xuduudda Soomaaliya kolonyo dhan oo gawaari ka gudubtay oo dad badan oo Soomaaliyu labada dhinacba ku dhammaadeen. ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa faataxada in la maro. xasan sheekh intuuna dalka rogin uuna dadkan rogin uuna dagaal horle na gelin uuna waddamo waaweyn oo isdagaalaya oo weligood nabad qabay annaga uunana dhex gelin ilaahay subxaana wa tacaala diyaaraduhu saaran yahay inuuna dalka ku soo noqon oo ilaahay xasan sidaa diyaaradaha uu saaray malagiisii uu ka dhigo oo ilaahay hawada uu kula qarxiyuuna nagu soo nabad noqon. ummadda Soomaaliyeed ay faataxada hala maro. ummadda Soomaaliyeed xasan 15 May baa la doorto weli dowlad lama dooro. xamsi ra'iisul wasaaruhu doortay bishii waa ka dhammaad. waxaanoo idil waa maaweelo waa la ismaaweelinayaa qorshuu ka wataa. ninbaa hadda i soo wacay wuxuu igu yidhi 7 waddan oo Soomaaliya ay xasan sheekh ilma adeer yihiin 7 waddan oo xasan sheekh xiriir la lahayd ayuu xasan sheekh xiriir ka soo diyaarsaday inay dagaal ka taageeraan dagaalka Itoobiya inay ka taageeraan inay maxay ay tahay Soomaaliya dagaal ay ku taageeraan dagaal ay Itoobiya la gasho in xiriirka loo jaro in colaad loo qaado waddamadii madaxweyne farmaajo uu xiriirka inoola sameeyey Itoobiya iyo Eritrea wuxuu u wareegayaa hub aruursi colaadeed buu ku jiraa. dagaal buu ciidamo sibood gareeya iyo hub in lagu sibood gareeyo ayuu raadinayaa. wuxuu raadinayaa ciidankii farmaajo dhisay inuu dagaal ku baabi'iyo oo uu Itoobiya ka horgeeyo wiilasheena. wuxuu raadinayaa inuu kaga takhalluso ciidankii sirdoonka inuu sidaa ku baabi'iyo. gorgor iyo arabcadna inuu dagaal abuuro oo dagaalka Itoobiya oon wax naga quseeyo jirin oo Masar loogu hiilinayo inuu ciidankeena geeyo. hub aruursi iyo ku maqan yahay xasan sheekh. ummadda Soomaaliyeed dagaal waa naqaan 32 sanaan isdagaalayn wax noo yimid ma jirin. wax Turki aan ka ahayn oo waligayana soo agmaray ma jirin. Ajabti waa joogtay imaaraadna waa joog dabkay nagu sii horinaya. waxaa la yidhi riya hadday dib leeyihiin dabadooday ku dataan. Ajabti Liibiya xuduud la leedahay sida Liibiya loo burburiyey oo ayaga loogu maray oo diyaaradii duqaynaya Ajabti uga duulayeen maaragtay Liibiyadii samaysanaysay koransiga lacagta ay iyagu leedahay. waddankii Yaman oo carabta ahaa maaragtaan sida loo galay waa carab waana isku egyihiin waana isku luqad. Soomaaliya Falastiin sida haysta maaragtay Ciraaq maaragtay carabu waa mid ah. carabu waa mid ah. walaalaha iyo Turki markii cid waliba gacmaha naga laabatay oo Maraykan inuu na qabsaday uu damcay oo Maraykan aan iska celinay. Maraykan wuxuu na geliyay go'doon dadka yagina quxuntibu u kala gura si dalku ugu bannaanaado siduu cunaqabataynta noogu hayo oo dalka markaan uga qaxno si fudud uu ku qabsado. ninkii Donald Trump na dhihi jiray ciidankiisa wuu naga kaxaysta wuuna nabadgeli. ninka maanta jooga waa ay dhalay Ukraine dagaalku geliyay maaragtay. ruushka aflibax siduu u geliyay Ukraine maaragtay. Ukraine siday u baaba'aysa maaragtay.
xasan gurguurta waxaa laga dhaadhiciyey sidii Ukraine Egypt intay tiraahdo hub baan idin siinaya iyo waa idin garab istaagaya in Ethiopia annagana lagu laayo Egypt ayna dagaal gelin dhaqaalaheeda una baabi'in shacabkeeda una dhiman Ethiopia ayna Egypt burburin Maraykan asagu Ruush taas lama dagaalin hub iyo wuxuu siinaya hub ciidankiisuna dagaalka kuma jiro hub baan idin siinaya iyo lacag buu yiri material yaa baaba'ay dalkii Ukraine yaa rogmaday dalkii Ukraine xalay wuxuu duqeynaya Maraykanku dekadahoodii inta yiri qamadiga inaad dafsataan baan idin fasaxay iyo markay baalkii bilaabeen iyo haddana duqay ku bilaab annagu maanta Ethiopia lama dagaalayno wax dano kula dagaalnaana ma taalo dan Soomaaliya leedahay oo Ethiopia maanta aan isku dagaalnaa meesha ma taalo Ethiopia hore maanta ma taalo kilika shanaad inta farmaajiya abi joogeen nabad baa lagu waa dhisteen amni bay hela maalintu farmaajo tagay wata dagaalku ku bilowday wata Soomaaliya intaas oo ciidan oo koronyo ah uga soo dushay dalkii walaaleen Soomaali galbeed wixii ku dhamaanayay shalay xuduudda goday iyo ceel barda u dhaxaysa Ethiopian miyay ahaayeen ma Egyptiyiin bay ahaayeen wiilashu labada dhinac waa wiilasheen waa Soomaali waa kuwa halkan laga qalday oo lagu qalday siyaasad beena oo lagu qalday diin beena iyo dadkii meesha deganaa xasuuq ummadda Soomaaliyeed saacadan adowga Soomaaliya ay leedahay waa gurgurta iyo maadsala iyo Egypt iyo kuwa raba dalkooda inuuna burburin laakiin annaga dagaal inayna geliyaan gurgurta maanta waa qudbey hadda daqiiqada ka hor bay shir wada qabteen isaga iyo Siisi ninkii Egypt haysta wuxuu ku dhawaaqay inuu ka soo horjeedo biyaha webiga oo warshada ka samaysatay dalka Ethiopia inuuna 100% Egypt garab taagan yahay Ethiopia uu ka soo horjeedo سعد أيوه لصفت دلك أجبت دلك مصر سعد أيونا إثيوبيا كسورجست وحنا كنا واقعي دقال صوماليا إثيوبيا لقليس وصوماليا قدي هذا مصر صوماليا وقاضيس ودقال لبطنا ومصر إيا إجبتيا إيا السودان إثيوبيا لقلا دقالمي حقيقة الربعين أنا دي شاغو إثيوبيا وادال كريشتانا هذا كوربا الله ينقو قلب ومرايكا كيورانا يدي سبوت قرينايا إثيوبيا هيستوريكا قفك أخرستا قرانايا وحتى الله هيستوريكا في يهود وحتى الله هيستوريكا ومسلمك وحتى الله وماشي أقوين هدونك هيستوريكا أقوين إيتو إن كريستيانتيكو أي تالا ودم عربتنا در كيسان وحيوها ديغان ودم كريستانا مرايكاك يا إنجليزك يا أسترالياك يا أديغان يهودنا عرب ودن باي مدحا uga kaadida wadarkaysan Israa'iiliyiinta reer Ethiopia inay yuhuud rartay oo barkood maanta gobol Arabta laga kiciyay ayaga lagu beeray degayay Ethiopia dagaalkii maalinta dhaweyd maqal ka dhacay magaaladan gobol dhan dhulka lala simay iyo dadkiisii wadarkaysan diyaaradii duqayn laayo itikraa baabi'in laha yaa lagu caawiyay darownada وانا لا بابيي دولكا لا لس دولتي صدن iyo dhowrka sano talinaysay gobolkeeda dhisatay ee artillery iyo hubka diyaaradaha iyo diyaarado iyo wax walba darawna geysatay Ethiopia wala Egypt wala Heblay qof inuu dhawaado ma ogola wadamada Kirishtaanku Ruushkaan ogolayn dalka Ruushku waa Orthodox وكين نجبرجي نجوس الدولي إثيوبيا وصل يتوس إنه الله ما يمغليسا دالك الروشكو وأرتدكس كريستي دين تأرتدكسك وجو أذك وجو مبدأ أذك عند فرق من ودمرك دين تكريستك ودمرك كريستك باور كمان تأدونك إلى هاي سي أوضع وقت فرا بدن ينقلياركو waxa ay yeelan waxa itaala origin keedi dalka Ethiopia itaala diiniyan baa loo ilaashada dalka Ethiopia
innaga Soomaali baynu nahay taariikh midii inaga gaartay ayaa inoogu fura burburkii Itoobiya naga soo gaaray waa mid ilaa maanta aan la leexayno ee aan ka soo kaban laanahay waxaan rabaa inaan idiin sheego garxajisow sida loo soo qabta ma aqaano la isugu xiro baalkan ma aqaano am sorry waxaan rabaa marka inaan idiin sheego shacabka Soomaaliyeed intaynu ku toosi lahayn inagoo dagaal Itoobiya kula jirno oo Egypt qoryo iyo hub inta inoo keentay leedahay Soomaaliya Itoobiya la dagaal half of Ethiopia waa Soomaaliya waayo kilika shanaad Ethiopia la dagaalaynaa markaynu dhaano waxaynu la dagaalaynaa kilika shanaad waxaynu la dagaalaynaa dadkeena Soomaaliya waxaynu ku duulaynaa dadkeena Soomaali waxaynu ku duulaynaa dad la daris gobolada Egypt kamida ma ahan Soomaali laakiin Ethiopia qayb kamida waa Soomaali waa dadkeen waa dalkeen Ethiopia iyo dawladda Kenya dalka waynu la leenahay wasiiro iyo gobollo go'an kuma lihin dalka Masar shughulna kuma lihin dawladdeedana hal shakhsi oo Soomaaliya kuma jiro dawladda Ethiopia wasiirka maaliyadda waa nin Soomaaliya aan gudoomiye Mustafa Xajarna gobol dhan buu haystaa gobol iyo ka badan bay dadka iyagu gobollo badan bay dadka iyagu degan yihiin Ethiopia qayb ka mid aan leenahay xaqiiqda markaanu soo degayn oo dalka iyaga yaa la jirto waxaan rabaa marka inaan idiin sheego Ethiopia daris baana mana kala go'ayno Soomaaliya maanta dagaal ma awoodaa maanta dagaal ma rabna Soomaaliya xuduudda ugu dheer dalka Ethiopia aan la leenahay ilaa doolow ilaa law yacado Ethiopia xuduud la leenahay ilaa doolow xuduudda doolow ee gobolka Gadow saa'ura ilaa Bakool ilaa gobolka Hiiraan ilaa Galmudug ilaa Buuhoodle ilaa iyo meesha la yiraahdo awa la yiraahdo Wajaale ilaa iyo Boorame ilaa iyo law yacado ayaanu xuduud la leenahay dalka Ethiopia oo waliba dadka nala degan ay dadka iyaga yihiin oo walaalaha iyo Soomaaliya yihiin maxay nagaga xiran Ethiopia barbaynu leenahay Ethiopia dagaalka ka dhaca dad Soomaaliyeed baa fakti garaynaya dadka iyagu waa fakti garaynaya Egypt in yar qoxunti ay naga joogto wana ka soo xashan karnaa xuduud la malin Ethiopia dagaalka ka dhaca wiina fakti garaynaya intay nagu soo qaxeen yay Hargeysa dhooban yihiin oo Boosaaso dhooban yihiin oo Garowe dhooban yihiin oo Muqdisho dhooban yihiin Egypt dagaalka ka dhaca inaga ina maqsay soddon iyo dhowrkii sano inuu baabaynay muslim baynu ahay wadan muslim oo inoo soo gurmada ma aragtay wadan muslim oo Turki ka ahayn oo ina soo caawiyo ma aragtay Arab inoo soo gurmata ma aragtay Afrikaan inoo soo gurmada ma aragtay dadka Soomaaliyeed Xasan dagaalka Ethiopia toos inoo geli Ethiopia duulaanka lagu qaaday in Xasan baa ka dambeeyay Mahad Salaad baa ka dambeeyay Xasan Tigray wuxuu heshiis lahaa dawladdii Tigrayga wuxuu ka xumaa inuu Tigrayga burburo Xasan wuxuu soo noolaynayaa dawladdii Tigrayga ee dadka Soomaaliyeed gumaadi jirtay ee gobol walba dhibka inagu haysay ee dhibaatada inoo geysan jirtay Xasan waa Tigray asaga Faroole Axmed Madoobe waa dawladaha Tigraygu dhisteen ma garad waa dawladihii ay Tigraygu ay dhisteen waa dawlad goboleedyada ay dhisteen Xasan Dhiiqo Soomaaliya god buu ku ridaya habeenkii xalay ahaa waxa midi iyo Toorey magaaladii Muqdisho iyo balaayo aanan arag booliisku qabteen ma aragteen soorka filimaanta lagu dhigo soorkan dhaadheer iyo seefaha xalay Muqdisho lagu qabtay ma aragteen 74 nin oo ku jira 49 jir iyo 52 jir ya xalal qabta
waxaa la qabtay 53 mindiyood oo seefa oon weligeed Soomaaliya lagu arkay oo baynaad miyaa la dhihi jiray qoryahan filimaanta lagu dhiga midda afka uga jirta oo lagu dagaalada wadamada waaweyn ku dagaalama waxaa la qabtay tuutii military bal ninka booliiska sheegaya wuxuu sheegay odayaalka qaylinaya inay iyagu soo dirayaan Mooryaanta waxaa shalay ay soo daysay oo loo soo diray gabar Xasan Sheekh maama wadani oo Xasan Sheekh adeer u yahay waxay loo soo diray asagoo wiil qaylanaya calaananaya Muuse Suudi oo leh ariya 4 nin soo dilaan ku iri hal nimaad soo dish ya maana ku iri 4 nin soo 4 nin aan ku diray xaad hal nin u soo dish adkii bay wiilal ka yaabay oo dhalinyaro ah oo markaa meesha joogay ay maama wadani u soo diray waxa maanta socda maraa Muqdisho ay dan ugu jirtaa ma Soomaali weyn baa dan ugu jirtaa ma qarannimadeeni bay dan ugu jirtaa gurgurte shalay markuuna xilka hayn yaa u yeeranayay yaa diyaarad saaranayay yaa infayd garaynayay war waxaan arki jirnay madaxweyne Farmaajo markuu joogay safaarada noo imaanaya safaarada sharciga dhiibanaya oo madaxa u gundhinaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyadii Soomaaliya diyaarad baa la saar maalin Egypt baa la geynaya maalin Imaaraad baa la geynaya maalin waxa la geynaya Tansaaniya maalin Nairobi baa la geynaya away madaxtooyadii Soomaaliya looga tali jiray filla Soomaaliya waxa la saaray diyaarad xasan muxuu dawladdu dhisilaayeen wuxuu boobayaa dawladdu markay dhalato wasiirar raacaya waa laga soo horjansanaya intaan dawladda una dhisin wuxuu rabaa wax walba inuu saxiixo dalka inuu iibiyo dalka inuu beec geeyo dalka inuu xaraashto waa xasan xaraash qaran xasan waxaa ka yaabay oo madaxa gacmaha saartay balwaan wiilka la yiraahdo 5 sano barbu Farmaajo caayay oo uu ka soo horjeed iyo Cabdulqaadir Boos daar ala sawafka gacantu isku haya Cabdulqaadir Boos iyo ninkii la dhihi jiray balwaan afkay furte waayo hooyooyinkood baa Muqdisho jooga hooyooyinkood baa amni waay dalkii meeshuu ka dhacayay arkaya xasan Sheekh dalka markuu dagaal geliyo kursiga abgaal baa ku fadhiya waxayslaa ku fadhiya eedaa iyagoo dhan bay wada gaaraysaa wuxuu xasan haleeyo hawiyoo dhan baa loo Soomaaliya ku eedaynaysaa hawiyoo idil yay Soomaaliya ku eedaynaysaa abgaal baa eeda la wadaagay waxayslay qaas u noqonaysaa magaxumada iyo caydu balwaan iyo Cabdulqaadir Boos ba waa gaaraysaa way ku saxan yihiin inay ka hor yimaadeen waayo kursigan had boqoladii loo dhiibo waad maqlayseen intii meel lagu shiray baa la Farmaajo waa mareexan tii shalay ay oranayeen inay imaanayso ayay og yihiin labadaa wiil oo dhalinyarada way ku saxan yihiin markay arkeen dalkoodii oo god ku dhacaya inayna ku indha adeegin oo ina dhihin shalay baa taageertay maanta qaladka taageer way ku saxan yihiin inayna dhihin shalay yaa taageerta ee maanta qaladka ku sii soco inayna dhihin waa ku saxan yihiin balwaan iyo Cabdulqaadir Boos nin ragu waa qaldama wuxuu rabay markay sidii la rabay hadday noqon waayaan oo si kale u baxaan inuu yiraahdo waa qaldamay Soomaaliya raalaha layga noqdo waa ku saxan yihiin Cabdulqaadir Boos maanta raali galin buu soo qoray wuxuu soo qoray beesha Farmaajo oo aan anigu ka dhashay wuxuu yiri mareexan oo raali iga noqdo mareexan waa gob 5 sano barbaan Farmaajo ay waligay teleefon inta ii soo direen Farmaajo anagu nagu cid yahay ha caynina cayda ka daa waligood ima dhihin buu yiri qoraalkiisa waa ka page-kayga soo dhigay waligood ima dhihin maanta teleefonka waa isqabsanaya oo wallaahi ya billaahi ya tallaahi Sheekh Cabdullaahi Farandis baan ahay
وانين علي قافة وحيسلا واجي بريا وايسو عمركا فرماتشا كاد يحانا بي ولا علي مركا كاد لحسن الشيخ يحانا بي ولا هدنا ويفير سنية يحانا بي ولا علي وكادي حاد وقدمه حاد وقهله حاد وياله وحان رباينا نلكان وقشيغو سياسة دمانين بانين باكور سيغاهية إنانو شيغو إن دادك قبائلك كتا غيرسان حسن الشيخ أنيقا ومدحوينيك حسن الشيخ يا جنرال الأدواء يا علي يري يا فرحان قرو يا عمر فينش يا نيكا اللي يرادو محمد علي قيد أنيقا وإيسي ميه نين والبا وحو إتسيو نين والبا سيدو دالك يا دادك وحو نوغو قبطو يانكو تاغيريا ميدكي وحاليا وهبارينا قطرنا قلينيا وهبارينا وكسور جنسانينا وحان رباينا نشاقو دادك إساو وحيا ويلاشا إساو وحيا وإلى حسن ده حسن جدك الصحة هدو قادو ودالكان إيا دادكان أبارا إيا علادا كتشرا وقرمدو حسن أدون أدقو إيدرن يان تاقيريا وأن قرب استاقيا حسن أنا قوى مدحوينايك waxay ajabtay iyo loogu yeeraya Kenya waxilku anaga noo hayo qabiil maahan uu ka gudbay qabiilkiina asaga u tartamay madaxweyne qaran ma ahan beeldaajiya udiina ma ahan malaaq abgaal ma nabadoon abgaal ma nabadoon hawiyana ma xilkii madaxweynaha dalka Soomaaliya oo dhan buu haya waxa loogu yeeranayo oo uu diyaarad la saaran yahay oo uu bixgaynayana ومصيرك أمد الصومالية أنا قاعد يسوي حنا حسن وعقل علي حسن وانية حسن وشيء دلك يدك الله ترطي إنه وحقبته وشيء شلي مركز فرماتي عايسين ومعارضة يسين أنا قوم ميديا سكت دفاعي لكن أنا يبينها كشيء لكن أنا قوم ولا لا أبن ولا لا قف كي محارضة فرماتش انت وحو ولا لو قبيل ويه يقول قبيل ويه هم محارضكم أدهين ومدحويناك وحايقو فلان مدحوينوه أرضو قرقين الله أرضو قد قيس هذا ربينو وحلق الشيخ سيدو كالات قف كي عن ربين حسن شاقين وحلق الشيخ قف كاقا قيس كابدقو إن كابا قبيل كدقو مركز صدام وحكا شيغو وغلدنا لكن أنا قوى مدحويناي waxa uu diyaaradda saarayna waa masiirkay ummadda Soomaaliyeed iyo kaygi iyo kii caruurtiisa caruurtayda kama indhaha kama qarsanayno dalka yagi oo nin gadanayo inaan aamusnaanta lagu meeriya ma yeelayno in aamusnaan lagu meeriyo ma yeelayno xasan inuu dalka yaga iibsado ma yeelayno inuu dagaal sokeeyana geliyo dagaalka Itoobiya buuminayo حسن ويلو دلي دغال ما غلينيو midka walaalkiisna ma gelinayo hantidii Soomaaliya waxay mid urutaa jiray wuxuu dagaalka gelinaya oo ku dhimanaya waa wiilasha Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waya kuwiisa dabadahay u jira marka ma yeelayno mana ogolaanayno gurgurte inuu dalka iga iibsado kama yeelayo inuu dagaalna geliyo kama yeelayo inuu masiirka ummadda Soomaaliyeed intuu dhabarka ku qaato maalin badal ula yibtago kama aamusayno dad waaweyn baan dad wax garadaan muqdishana ma joogno oo anaga Mooryaan ila ima dirayo oo ima dili karta Soomaaliyana ma joogo dal weynankii ka batay oo Canada la yiraahdo oo free speech laga ogol yahay ayaan jooga oo citizen ka ah oo calankiisa ilaalinaya وحرية أنا عاصمة مقدشان ولا شيء أنا كوالي كرين أنا كوهايستا دات كايغا إن بدن بان هادلي كرين ودالك قديسة كوشوكت مركا أنا ينتا يدا قرباها جوكتا يا عفو سومالي دو مجع على مركز الرنطة يا حقيقة كادش
waxay dhaan hadalka waa la maldaha waxay dhaan hadalka waa la daboola waxay dhaan waxbaa la qariya balaayo lama qariyo wax la qariyo qurun baa ku jira runta qofkaan sheegin waxaa u qarsoon beenna meel ma gaarto run iyo ilkaba waa la caddeeya xasan dalka yagii madaxtooyadii intuu diyaarad saartay iyo maalinba meel ka beexinaya xasan wuxuu waddamada ugu cararaya oo xamar u joogi la'yahay dalku iibinaya dalku beexinaya dalku ka taajiraya waddan walba inuu hutaal ka dhistuu rabaa waddan walbuu heshiis dalka yaga kula gelaya xasan kursiga dantiisu uga faa'iidaysanaya dalalka shisheeyana wuu uga faa'iidaysanaya tansaaniya ad arkaysay hutaalku ka gatay dowladdii hore oo cashuurta intuu bixin waaye laga xayiray tansaaniya ujeeddada ugu weyn oo ka soo daystay taasay ahayd shira waa ku salaamay ummadda soomaaliyeeday arrintu waa dhaaftay ha noqonina ma liibaana lagu liibaanin ha noqonina ma liibaane aan lagu liibaanin ha noqonina arrintu maanta shalay meeshay joogtay ma joogto gudaheenna ma joogto madaxtooyadii iyo masiirka ummadda soomaaliyeed diyaarad 7 waddan sii maraysay saararta hoggaan qaldan baan dooran ninaan madaxweyne u qaldan baan dooran xildhibaano la soo boobay oo la gatay baan doortay oo dhiig lagu laayay sidii gada iyo boosaaso ummadda soomaaliyeeday dalkiinni god buu ku socdaa haddaynaan istaagin waxaa inoogu filan shacabka DDS siday shalay u istaageen siday rag iyo dumar hooyooyinkii intay carruurtii ka soo tageen ciidankooda kimista iyo caanaha ugu lisaya ciidankooda u garab taagan yihiin dhallinyaradii u garab taagan yihiin raggii qoryaha u wada qaatay tusaale taasaa isagu filan siday al-shabaab ugu diideen dalkooda inay saldhig ku yeelato inay dalkooda qabsato inay dhex degto taasayna inaga rabaa walaalaha DDS ku dayashay mudan yihiin hooyooyinka soomaaliyeed waa inay ku daysadaan hooyooyinka Soomaali galbeed waa inay dhallinyaradu ku daysadaan dhallinyarada Soomaali galbeed yes we can dowladda nabad iyo nolol hurdada ka soo toos dowlad cali yare dowlad jaanis la siiyaa meesha ma joogto dowlad ina burburinaysaa joogta dowlad ciidankeenni la soo dhisay ad dhistay burburinaysaa joogta dowlad heshiisyadii iyo webigii Itoobiyaana laga soo xiray nagu soo furaysaa joogta nagu soo furtay baa timid dowlad lama dhisin nin kaligiis dowlada ayaa meesha jooga on talada lala wadaag oo shisheeye halkii xildhibaan 1 milyan ugu gaday oo aan shacabka xildhibaanadii doortay shacabka Soomaaliyeed soo dooran sida ugu dhaqso badan jamaahiirta nabad iyo nolol dalku badbaado rabaa dagaal Itoobiya intaanaan gelin oo nala gelin dalka hala badbaadiyo waaba la bilaabo Itoobiya intaasoo gawaari oo tiknika iyo ciidan 700 ka badan baa la geliyay hurdada ka taga balaayo bilowgeeda la qabtaa shacabka Soomaaliyeed mudaharaada go'aanka maanta Masar uu uga dhawaaqay xasan sheekh ha laga mudaharaado hurdada ha laga tooso nabad iyo nolol shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogtiin yes we can sidii Ukraine uu John Biden dagaal u geliyay intaan dagaal nala gelinin yes we can dhalinyarada Soomaaliyeed ay istaaga aabbayaalka Soomaaliyeed oo istaaga ka hortaga dagaalka Itoobiya layna gelinayo ka hortaga dalka la iibsanayo ka hortaga ciidankeena garab istaaga nabad iyo nolol ha la isgarab istaago dalka ha la badbaadiyo maanta muxaarad iyo maxaafid ma jiro dalka ha la badbaadiyo fadhiga ka kaxa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh